بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta xisbiga wadani saxaafadda ugu yeeray inuu ka jawaabo war saxaafadeed 26kii bisha maalintii khamiistii uu soo saaray Michael Waltz oo ah madaxii kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashadeennii dhacday 2007 November 13keedii hogaaminayay waxa aan doonaynaa markaa inaan bal kalimaad yar oo kooban aanu ka nidhaahno warbixinta qoraalka uu khamiistii soo saaray iyo maxaan ku dhahdaa saxaafadda uu la hadlay marka dhan laga eego doorashadu waxay dhacday 13kii November goobjoogayaashuna waxay warbixintoodii soo saareen 5 bilood ka hor oo lagu soo bandhigay London waxa dhacday inta kadib inuu soo baxay barnaamij la yiraahdo Baadigoob oo sida la wada socotaan dhaliilo soo jeediyay hab socodkii qaabkii ay doorashadeenu u dhacday annaguna falcelin aanu arinta ka sameynay oo aanu hadal ka jeedinay arinta markanu annagu markaa ka hadlaynay goobjoogayaasha caalamiga ah hal shay baanu ka hadalnay halka shay aanu ka hadalnay wuxuu ahaa inay muuqatay madmadow la xiriira habka loo soo xulay goobjoogayaasha caalamiga ah iyo inay muuqatay isku dhaca danaha waxa la yiraahdo conflict of interest gaar ahaan Michael Waltz oo hogaaminayay guddida amaba kormeerayaasha caalamiga ah ee wadankeena yimi waxa markaa la yaab noqotay in Michael Waltz inta Somaliland ku soo noqdo toona arrin doorasho jirin arrintii doorashadu dhamaatay mar labaad soo saaro war saxaafadeed oo arrintaasi kaga hadlaayo war saxaafadeedkaas oo isugu jiray eedeymo uu xisbiga wadani u soo jeedinayo xidhiidh uu ka dhaxaysiinayo barnaamijkii Baadigoob iyo beel ka mid ah beelaha Somaliland degta oo dhawaan shir ku qabsatay gacan libaax buurta gacan libaax waxa ahayd inuu ka jawaabo haddii ay kuba kaliftay inuu hadlo eedaha iyo waxyaabaha uu barnaamijkaasi soo jeedinayay oo ka hadlaayo waxa ahayd inuu ka jawaabo isagu wuxuu ku eedaysnaa conflict of interest amaba isku dhaca danaha waxa ahayd inuu ka jawaabo sida aanay arrintaasi u jirin oo uu yiraahdo anu waxaan ahay goobjooge madax bannaan Michael Waltz wadanka wuxuu ku soo noqonayay 15 sanadood ugu dambeeyay jaamacad weyn oo ixtiraam mudan ayuu ka shaqeeyaa oo macallin baraka yahay lecturer sidoo kalena arrimaha Somaliland iyo Puntland xagga development-ka marka laga hadlaayo amaba maamulka development-ka marka laga hadlaayo ayuu muddo dheer ka shaqeynayay nin 15 sanadood wadanka ku soo noqonayay academic-ka cilmi baadha ah waxaan filayay inuu intaa wax ka fiican sameyn karo marka uu hadlaayo waxaan filayay inuu fahmay culture-ka Soomaalida iyo sensitivity-ga arrimaha qabiilku ay leeyihiin waxaan filayay inuu ixtiraami doono amaba uu observe gareyn doono shuruucaha caalamiga ah ee la xidhiidha qofka observer-ka ah waxa ay tahay inuu ka hadlo iyo waxa ay tahay inuu galo shuruucahaasi waxa ka mid ah qaramada midoobay 2005 document ay kaga hadlayso waxyaabaha looga baahan yahay international observers-ka waxa la yiraahdo integrity-ga waxa kale oo ka mid ah conflict of interest inaanu jirin conflict of interest wax kale maaha waa inuu qofku meesha uu observe gareynayo uu dan kale ka leeyahay oo ka baxsan danta uu imanayay ah inuu international observer yahay waxa cad oo muuqata 15 sanadood ee wadanka uu ku soo noqonayay inuu xiriir sameeyay ceeb ma aha inaad xiriir sameysaa
inuu dad gaar ah ku xiran yahay oo xidhiidh la lahaa dadka badidoodu inay kulmiye yihiin arinta ahayd inuu ka jawaabo oo iska bari yeelaa taasay ahayd waxa cadaatay markaa tuhunkii aanu qabnay maanta tuhun ma waayo statementkiisaasi wax kale ma sheegayo kaliya aan ahayn inuu cadaynayo Michael Waltz inaanu dhex ka ahayn arrimihii doorashada Soomaaliland wax kale ma sheegayo aan ka ahayn inuu ku dhex milmay arrimaha siyaasadda Soomaaliland ee gudaha wax kale ma sheegayo aan ka ahayn inaanu fahamsanayn siyaasadda gudaha ee Soomaaliland iyo sida ay u shaqeyso qofka observer-ka ah roolkiisu wuxuu ku kooban yahay oo ku xadidan yahay inuu doorashada ka hadlo process-keeda ka hadlo result-keeda ka hadlo isagoo oo sidoo methodology-ga iyo wuxuu isticmaalay sheegay taa maanta kama hadlayn laakiin doorkiisa ma aha inuu xisbi qaran dhaleeceeyo doorkiisa ma aha inuu xisbi qaran waaniyo anagu waanowga ma baahnin Somaliland way ka adag tahay inay khilaafaadkeeda gudaha xallisato doorashadii dhacday 2017 dhaliilo fara badan baa jiray oo isaga reportka qudhiisu sheegayo qaar aanu sheegin baa jiray dhaliilahaas oo dhan anagu og xisbigu waa aqbalay sheeko ka taagan iyo hadal maanta ka jooga midina ma jiro laakiin sida aanu wax uga baranayno sida aanu hore ugu soconayno sida aanu stakeholders-ki kala duwanaa ee ka tirsanaa doorashada ku lug lahaa ama civil society ha noqoto ama commission-ka ha noqoto ama system-ka u dejisan doorashooyinka Soomaaliland ha noqoto sida loo horumarinayo ee looga hadlaayo ee dareenkayga aanu uga sheegayno ee aanu ula dhaqmayno wax Michael Waltz la weydiinaya maaha wax u yaalana maaha shaqo isagu leeyahayna maaha shaqadiisu waxa ay ku koobnayd ay ahaydna inay ku koobnaato inaanu soo dhaafin xayndaabka ah inuu yahay international observer waxa kale oo xiiso leh inuu ka hadlaayo oo uu leeyahay waxaan u yimi waxyaabaha aanu jooga halkan waxa kamid ah doorashooyinka 2019 ee baarlamaanka anigu donor kuma ogi dawladdu matala kuma ogi nin academic ah oo jaamacad ka shaqeeya oo project development-ka sida loo maamulo la xidhiidha wadanka u yimaada ayaan ku ogeyn cid uga baahan inuu arrimaha iyo doorashada Soomaaliland ee soo socda uu ka hadlo amaba door uga banaan amaba meel uu ka galo oo uga banaani ma jirto marka waa ayaan daro ay tahay xukuumaduna inay ka dareen celiso waayo statement-ka uu isku xidhka ku samaynayo xisbi qaran oo arrimo qabiil ku eedaynayo waa eedayn aad u weyn weeye way dastuurkeenu waxa uu dhigayaa qodobkiisa 11aad waxa uu dhigayaa inaan xisbiyadu xisbi reer lagu salayn karin marka uu go'aan xisbi iyo shir jaraa'id oo xisbi qabtay uu leeyahay reer baa ka dambeeya waxa uu xisbiga si cad ugu eedaynayaa inuu xisbigu dastuurkii Soomaaliland u jabiyay dawladdu waa inay markaasi maadaama habeenkii ka horeeyay madaxtooyada joogay dawladdu waa inay ka dareen celiso oo khaladka iyo gafka uu reeraha Soomaaliland iyo xisbiga qaranka Soomaaliland ba ka galayo waajiba dawladda ka saaran cidii ka baxsan reer Soomaaliland ee arrimaha Soomaaliland soo faragashata inay ka jawaabto haddii aanay iyaguba qayb ka ahayn oo aanay qoraalka la soo sameeynin oo aanay u soo dhiibin oo aanay daaha dabadiisa ka riixahaynin arinta kale ee xiisaha leh waxa weeye Hargeysa International Book Fair waa madal loogu talagalay in lagu horumariyo oo kor loogu qaado oo lagu dhiirigeliyo wax akhriska anigu qof ahaan wax akhriska waan jecelahay dadka wax akhriya waan jecelahay wax akhriska in la dhiirigeliyana waan jecelahay dhalinyaradeenu inay wax baratay wax akhridana waan jecelahay waxa laakiin ayaan dara ah inuu Michael Waltz madasha u isticmaalay qoraalkiisa sida ku cad ee wada aragteen inuu madasha u isticmaalay goob uu ka dhaliilo xisbi qaran
inuu madasha u isticmaalay goob uu ka weeraro oo uu ku eedeeyo beel ka mid ah beelaha Soomaaliland ee barnaamijkii Baadigoob ka dambeysay annagu xisbi ahaan Baadigoob garyaqaan uma nihin oo ma hadlayno beel uma hadlayno oo garyaqaan uma nihin laakiin tiise arinta xisbiga khusaysa ee uu gefka ka galay waa arin aan xisbigu ka hadhi doonin level kasto ay leedahayna uu gaarsiin doono hadii Ilaahay raahdo insha Allah laakiin waxaan ka xunnahay inuu madalihii loogu talagalay in loo isticmaalo wax akhriska iyo horumarinta aqoonta dhalinyarada iyo dadkaba inuu u isticmaalay madal siyaasi ah waxaan ka rajaynaynaa dadka maamula Hargeysa International Book Fair iyaguna inay arintaasi ka dareen celiyaan haddii aanay qayb ka ahayn Michael Wolff iyo waxa uu ka hadlay ee uu isticmaalay sida qoraalkiisa ka muuqata annagu ma aanan magacooda soo qaadin qoraalkiisu ku jira uu ku weerarayo xisbiga iyo beesha gacan libaax ku shirtay labadaba ayuu ku jira Hargeysa International Book Fair inuu labada meel isugu keenaa oo waxa soo dhan meel isugu keenaa waxa ay tahay isaga iyabay u taalaa inuu sharaxo iyo cidii la socotay annagu xisbi ahaan mar kasta waanu taageereynaa waan soo dhaweynaynaa goob joogayaal caalami ah ee wadankeena yimaadaan oo ay doorashooyinkeena qayb ka noqdaan cid kasta oo doorashooyinkeena wax ku kordhinaysa ama dal ha ahaato ama urur ha ahaato iyagana waanu soo dhaweynaynaa laakiin aqbali mayno qofnaba inuu laba shaar noo gashto horena waanu sheegnay imikana waanu sheegaynaa haddii ay cid hore ugu shaqeysay inay laba canleeyaan that's over waa inay ogaadaan arrintaasi ay dhamaatay waxa markuu shaqeeya laguma celceliyo Somaliland uma baahna lecture uu u jeediyo oo ku saabsan arrimaheeda doorashooyinkeeda iyo waxa la xiriira sida ay u qabanayso Michael Wolff lecture uu u jeediyo uma baahna sida cad dhaliilaha doorashadii ka soo noqday haddaanu anagu civil society dhaliilay haddaanu anagu commissionka doorashooyinka dhaliilahaygii waan ku taaganahay hore aanu sameynay oo dhan cadeymahoodii iyo waxoodiina waanu haynaa sababahan u dhaliilayna annaga ayaa og wax isaga u taala ma aha inaanu dhaliilay inaanu ka hadalay civil society-gu waa reer Somaliland weey inay wanaagsanaadaan oo ay shaqeeyaan oo ay neutral noqdaan oo ay horumarka wadanka ka shaqeeyaan waa dan annagu aanu leenahay waa dan xisbigu leeyahay waa dan ummaddu leedahay waa dan qaranku leeyahay weey ma aha wax aan waana isaga Michael Wolff aan uga baahanahay waxa aan jecelahay oo aan ku soo xulayaa xeer kasta iyo wax kasta oo la xiriira arrimaha observationka doorashooyinka Michael Wolff uu jabiyay sumcaddii iyo credibility-gii uu ku yeelan lahaa arrinta doorashooyinka Somaliland uu biyay markuu ka baxay uu ka gudbay xayndaabkii loogu talagalay waxa ahayd inuu ku koobnaado kaliya arrimaha doorashooyinka wuxuu doona marka arrintaa ka yiraahdo waa academic culture-ka qofka academic-ka waxa kamid ah waa mararka aan shakeen iraahdo isagu muu qorin malaha cid baa soo dhaxmarisay laakiin ciddii soo dhaxmarisayna smart ma ahayn culture-ka qofka academic-ga waxa kamid ah inuu critic aqbalo inuu wixiisa marka laga hor yimaado aqbalo qaabka uga jawaabayana qaab logically coherent ay noqoto oo maxaan ku raahdaa ka jawaabaya kaliya ku eegan dhaliilaha loo soo jeediyay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinaynaa dhaliisha loo soo jeediyay Michael Wolff waxa weeye inuu ku dhaxmilmay arrimaha Somaliland inuu dana ka baxsan arrinta doorashada Somaliland ka leeyahay inuu ururo kale oo reer Somaliland qayb ka yahay inuu dad badan oo kulmiye ah xiriir dhow la leeyahay taasaa lagu eedaynaya taasaan cid kasto ay jaamacadiisii uu ka shaqeynay ku jirta u sheegayna taay tahay inuu isagu ka jawaabo iska bari yeelaa taa weey ma aha inuu yiraahdo goob joog waan diiday
maaha inuu yiraahdo maxaan ku raahday xisbiga waana u soo jeediyo xisbigu waa aqbalay doorashadii isagana ugama baahna inuu sheego doorashada inuu xisbigu aqbalo xisbigu doorasho soo socoto waa u diyaar isagana ugama baahna inuu u jeediyo isaga waxa kaliya laga rabaa inuu arinta ka hadlo oo uu yiraahdo anigu hadaan ahay Michael Wall conflict of interest man sameyn oo arrimaha kale ee Soomaaliland lug kuma leeyahay lug buu ku leeyahay taasaa muujinaysa dadka uu ku xidhan yahay iyo network uu ku xidhan yahay badidoodu waa kulmiye waxaana ka muuqatay ku caddahay statement maalintii hore aan halkan ka hadlaynay aanu lahayn consensus baanu qabnaa wax kale ma aanan oran consensus baanu qabnaa su'aalo badan baana u baahan in laga jawaabo baanu nidhi dadka wax yar baa ogaa laakiin hadda ilaa shalay ta eegteen oo observe gareyseen social media iyo Twitter-ka statement-ka uu soo saaray buuqa u dhaliyay iyo hadalka u dhaliyay iyo qaybinta uu kala qaybinayo dadka reer Soomaaliland ee uu abuuray waa arin aan loo dul qaadan karin weeye waa arin annaga mas'uuliyadeedu tahay inaanu level kasta ay leedahay aanu geeyno aanu kaga hadallo waa arin ay mas'uuliyadda xukuumadda tahay inay ka hadlaan oo ay arintaasi sida ugu adag ee ugu habboon ay uga hadlaan aad iyo aad baa u mahadsantiin salaamu calaykum